bismillaahi raxmaani raxiim duur wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duurnimo idaacadda danan qodobada ugu doorkaroon maantana waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo qof shacab ku dilay mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir dowladda Soomaaliya oo jawaab hadalhayn badan dhalisay ka qaaday wakiilka qaramada midoobay u fadhiyo gudaha Soomaaliya mas'uuliyiin horay xilal u soo qabtay iyo siyaasiyiinta qaar oo isku khilaafay qoraal ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo soo dhaweeyay talaabadii lagu ceeriyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya warar dheeraad oo ka soo baxay shil geystay khasaare kala duwan oo ka dhacay magaalada Buco ee gobolka Togdheer guddiga doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland oo lagu dhawaaqay xilli 5 maalmood ay ka harsan tahay doorashada howlgal sanaya muraayadaha gaadiidka dhalinyaro si weyn looga cabanayay oo laga sameeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari tiral shabaab ah oo la sheegay in lagu dilay howlgal laga fuliyo koonfurta Soomaaliya lagana qabsaday saanad ciidan shacabkii ku noolaa degmooyinka Kilinsoor iyo Bandiirale ee gobolka Mudug oo la sheegay in dhibaato adag ay ka dhaxleen dab la qabalsiiyay guryihii ay deganaayeen dad badan oo lagu xirxiray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo ciidamo tiro badan oo lagu daadiyay xaafadaha qaar akhbaaraadka caalamiga dan idin heesa duhurnimadan dhageystayaal iyana waxa uu dooroon 6 qof oo ku dhintay gudaha dalka Denmark warka duhurnimo waxa inoo sahlay shirkadda internetka caankua ee Somali Optical Network Zone haddaba haddii aad doonaysid fiber optic tayadiisu sarreyso la xiriir Zone hey iska hubi haan hubiya raadiyaha dhagaysanaysa maando waa raadiyo danan hay dadku idinka dhagaysta duur wanaagsan dhageystayaal waa duur Arbaca taariikhdu waxay ku aadan tahay 2 bisha koowaad January sanada 2019 waxaa maanta inoo waramaya waryaheena Cabdulfataax Maxamed أبو مهسيه نوري عبد الله سليمان محمد بن سعودي بسم الله الرحمن الرحيم ظهر وناكسن dhageystayaal sanad wacan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow qof shacab ku dilay gudaha magaalada Muqdisho ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa duuray maanta waxa uu baan ku dilay gudaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir wararka ay helaysa danan waxa ay sheegayaan askariga dilka geystay qofka shacabka ee la dilay in muran uu dhexmaray ka hor inta aan rasaasta ku furan askariga qofkaasi waxaana goobjoogayaal ay noo xaqiijiyeen in ciidanka dowladda oo goobta ka agdhawaa durbo ay gacanta ku dhigeen askarigii dilka geystay dilka ayaa waxa uu ka dhacay nawaaxiga xaafadda Siigaale ee degmada haddii uu qaado taliska degmada Hodan doontaan dhageystayaal dowladda Soomaaliya hadalhayn fara jawaab siisay wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya dhinaca kale mas'uuliyiin horay xilal kala duwan u soo qabtay ayaa isku khilaafay talaabadaasi ay qaadeen dowladda Soomaaliya warbixintan waxaa eegaya waryahayaga Yuusuf Maxamed Axmed saxafiyare waa talaabo dadka la fagura siyaasadda Soomaaliya ay ku kala aragti duwanaadeen go'aanka dowladda ay ka qaadatay oo ay dalka kaga eegisay gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ambassador Nicholas Haysom talaabada ay qaaday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa timid kadib markii warbixin guud uu ka soo saaray Nicholas Haysom dhacdooyinkii ka dhacay magaalada Beerdhabo ee lagu dilay dadka shacabka ah ee uu ku jiray xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka maamulka koonfur galbeed iyo xariga
wadaadka mukhtaar robow cali abuumansuur kana mid ahaa musharaxiintii u taagneed qabashada hoggaanka sare ee maamulka koonfur galbeed oo ay dowladda Soomaaliya ka soo xirtay magaalada Beedhabo in jawaab cad ay ka bixiso arrimahaasi sidoo kalena warbixinta lagu sheegay in mushaaraadkii la siin jiray ciidamada booliska koonfur galbeed ay qaramada midoobay ay ka jaratay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ambassador Ahmed Ciise Cawad ayaa Nicholas Haimsom ku eedeeyay in uu jibiyay xeer caalami ah oo u degsan qaramada midoobay Nicholas Haimsom ayaa loo soo magacaabay xilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhanka arrimaha Soomaaliya 5 September ee sanadkii tagay 2018 isagoona bedelay Major Keaton oo uu dhamaaday muddada xilhayntiisa qaramada midoobay waxa ay Soomaaliya ka taageertaa dhinacyo badan oo ay ku bixiyaan dhaqaale fara badan meelaha qaar oo ay dhaqaalaha ku bixiyaan qaramada midoobay ayaa waxa la tibaaxaa inay ka faa'iidaan waxyaabaha ay bixiyaan in ka badan sida caadada ahayd marka ay dowladda Soomaaliya waxyaabo oo ka hadlaya masiirka dalka ay soo saarto waxa ay la kulantaa mucaarado iyo taageero dhinacyo badan ka kala imaanaya maxamed mahdi muudey waxa uu ka mid yahay dadka sida aadka u falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda waxa uuna arrintan dowladda federaalka Soomaaliya ee talaabada dalka ay kaga eerisay ergeyga gaarka ah ee arrimaha Soomaaliya uu ku tilmaamay in dowladda dalka ay u horseeday dagaal diblomaasiyadeed waxa uuna sheegay in Soomaaliya xilligan aysan gaarsiisaneen inay ka maaranto kaalmada qaramada midoobay talaabada dowladda Soomaaliya ee qaaday waxaan u arkaa inay tahay talaabo khaldan waayo qalad shalay ayay galeen markay mukhtaaradu soo qabanayeen waayo taageero badan ay soo ahaa oo shacbiyada ay taageersiiyeen waxaa fiican haddii wax la dooranay ninka shacabka uu taageersiiyay in wax macnaha in la sheegto ninkaasaan wax qabansan ninaan macnaha dowladda eegaysan waxba qaban karo marka waxaan leeyahay waa ku degdegeen in wasiirka laga buriyo oo la yidhaahdo wasiirka arrimaha dibadda waxaan leeyahay arrintaas waa ku degdegeen aragtida ka duwan waxaa qaba xildhibaan hore Daahir Cabduqaadir Muuse Daahir Cirro waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya ku amaanay sida ay u difaacday masiirka ummadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya markii dalkan leeyahay ay labada bal isfahmaan oo ay ku heshiiyaan masjiin dhaafsadaan dal walbaaba diblomaasiga la jiro loo fiiriyaa waa la wareystaa mintiga la eegaa dabadeedna aqbalka markaas guddoonka waxaa iskala madaxweynaha haddii markaa kadib ay dowladdu aragto faragelin laga dareemo in daakhiliyaha dalkii diblomaasiyadiisa ogolaaday faragelin lagu arko dowladdu waxay leedahay inay ka noqoto oo saartay xaq ugu leedahay oo markaa arrintii soo dhisatay hadda golaha UN-ka waxaa soo dirsaday wakiil buu yahay Soomaaliyeed wax badan baa isaga khaldan qaar baa waxay ku leeyihiin asaga madaxweyne ka Soomaaliya hadda madaxweyne kama oo madaxweynaha Soomaaliya waxaa gaacidii qaladeena baarlamaaniga oo ay rideen ka marka haddii lagu arkay أو مكتبه إنه مدفع وشغل في دولة داخلية بعيد دولته حتى عرفته إنه دعجر في تاري دولتها دولته حتى يقول لها هاي إن كلام وصل دولتنا دولة كتعرفه شو بتوضح بتاعي xildhibaan hore Daahir Cirro oo talaabada dawladdu ay qaaday si aad ula dhacsan ayaa waxa aynu weydiinay saameynta ay Soomaaliya ay ku yeelan karto mowqifka dawladda waxa uu nacarabaabay in isaga qudhiisa aysan u muuqan wax saameyn ah oo ay ku yeelan karto Soomaaliya لكن وقت واحد ولا بيزور هذا أنا قصانين بلدين وأريها كذا وحين يشموا وحين نطرق نجسوا أنا وحن قرب يدا نسول كعدي مركز سياسة الله يجمعه
xildhibaano ka tirsan golaha shacabka mas-uuliyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay dalka ayaa waxa ay barahooda bulshada ay ku sandhigeen aragtiyo kala duwan oo ay ka qabaan tallaabada ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya. waxa ay tani muujinaysaa in jahwareer siyaasadeed oo kale ay wajahayso dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. lama soo oga tallaabada go'aankan uu ka qaadan doono xogayaha guud ee qaramada midoobe. aad u mahadsan yahay. kaasi waa wariyahayaga Yusuf Maxamed Axmed Saafire. isla amurtaan ku aadan dowladda Soomaaliya oo ka dalbatay in dalku isaga baxo wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaan ku guda jirnaa. dhinaca kale qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay taladaasi ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya. wariyahayaga Caasho Mahre ayaa eegaysa iyo shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay soo saartay war-saxaafadeed ku saabsanaa wakiilka xoghayaha qaramada midoobay oo ay kaga hadashay in gabi ahaanba aan looga baahnayn dalka Soomaaliya ayaa waxaan codbaahiyaha warbaahinta danan la dhex marnay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho si aan wax uga ogaano afkaaraha iyo siday u arkaan go'aanka ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. shacabka ayaana si weyn u taageeray go'aanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ayna tilmaameen in ay tahay arrin loo baahnaa. أنا waxaan u arkaa dawladda inay gar u leedahay markii waxyaalo oo aan loo baahnayn ayuu ninkaan galay oo ay ka mid tahay qaranimada Soomaaliya iyo inuu dadka asoo wax ka saarayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya fikir gortay dawladda ka qabto baan anigu ka qabaa waxa ugu daran oo ka hadlay arrintan ah dawladda fargelin ku leeyahay baylo haddii dawladdu meesha ay xukunto dibmilis marka hadda kaaga soo qaado dalka Kenya 47 maamul goboleed ka jirta waxayna hoos yimaadaan dawladda dhexe 4 maamul goboleed iyo 5 ba ka jira Soomaaliya حسن علق رئيس الوزراء محمد عبد الله محمد ومدحوينه waxa inay Soomaaliya ka qabtaan la rabay bay doonayeen nimankan inay ka qabtaan dalka aniga hebel midooban ay boorsadaydan wada adduunka wareega arrimaha dibadda ku gudaha ka madaxweynaha koonfur Jubbaland anahay aniga Shariif Sakiin anahay madaxweynihii koonfur galbeed anahay waxa in farmaajo loo dirtay Soomaaliya u eedmatay taan raba Abdul Gaas anahay waxaan doonayaa in DB Wall iyo Jaamacadul Arab iyo inaan kulli aan la xirto oo aan qandaraasyo iyo arrimo dibadeed aan kala hadlo hadda madaxweynaha ninka waa maamul goboleed waa barasaab waxa isdaba marka oo ninkan hadda loo erinayo waa hawshaas arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayuu u qaabilsan waa wakiilka qaramada midoobay shalay magaalada Hubiya la dhacay asaga xafiiskiisa la burburiyo danaas muu dawladda kala xajooda maamul goboleed iyo anjaradan socon u dubteen iyo isleeriga socon u karinaysa wax intuu galay in la cayri horta anigu fikirkayga waagi hore sida mahiga mar uu wadankan joogay iyo mar uu arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay qaramada midoobay had iyo jeer ninka ay u soo dirsata Soomaaliya madaxweyne isaga ka ahaa isagayna la shaqayn jireen maamul goboleedyada cid walba isagaas ay hoos tagaysay marka wuxuu u ekaa madaxweynaha Soomaaliya ninka ay qaramada midoobay soo dirsatay buu ahaan jiray maanta isbedel baa muuqda marka arrintaas ka